Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawaada channelkayga Yusra Media. Bacda salaan, maanta waxaan jeclaystay inaan ila wadaago arrin 40 sano ku dhawaad qowmiyadeena saqiirkeena iyo kabiirkeennaba mashquulisay. Arrin daljoogaheena iyo qurbijooggeennaba maskaxdooda ku dawaafaysa. Arrin aan weli haddaan nahay qowmiyadda Soomaali u samri weysanahay kana samri weynay. Arrin nagu kala firdhisay dunida dacaladeeda sidii maal la kala qaybiyey. Welise Allah nooma qorin sidii qowmiyadaha qaarkood inaan kala go'no ama aan noqono qowmiyad laga samro oo ka suuli rabta dunida. Sidii qowmiyadaha ay taariikhda dunida laga qoray aan ka soo warinay. Alxamdulillaah ayaan leenahay, maadaama ay arrintan tahay mid miisaaniyadeedu culays xambaarsan tahay, waxaan u kala dhigi doonaa sida tan. Sidee ku dhacday, sidee ku socotaa, sidee noqon doontaa seedaasheeda. Wax walba waxay leeyihiin bilaaw iyo dhammaad. Bilaawgu badanaa sidaan jeclaysano waa ka yar duwnaadaa, taasoo sabab u noqota inaan anagoo dadaalayna haddana fikirada yaryaroo qaldan dhabadeeda intaan u jeexano isku hagno. Bilaawga iyo dhammaadkuna waxaa u dhaxeeya xilligaas oo fursad muhiim ah na siiyo, laakiinse anagaa nagala rabaa inaan ka faa'iidaysano aan ficil la imaano. Haddaan u gudubno dhammaadka oo ah aakhirka oo aan fikrad iyo ficilba wax noo tari doonin, awood maskaxadeed iyo tan jismiyeedna howlgab aan ka noqon doono. Xalka dhabbadana tahay dhabbadii naloo soo xulo inaan raacno noqonno la haysto waxaan ku magacaawno oo ah ruux la leeyahay, taasoo inta badan aan ku magacaawno Soomaali haddaan nahay calafkaa qornaa oo aan xaqiiqna ku taagnayn, taasoo ah mid raad lahayn. Waxaan ku dadaalin oon isku taxallujin haddaan seegno Allah noo qoray ma oran karno. Maya, alla eed kuma leh ee waa annaga muujiskaynu. Si kastoo Alla subxaanahu wa tacaalaa uu qalbiyada daalacdo insaankiisa uu u yahayna qafuulu raxiim, haddana ficilka waa waxa rabitaanka iyo wanaagayna aan ku muujin karno. Hadal bilaa ficilna waxaan aan dhaaminayoo hoosna ka duleysha. Haddaan eegno haantaas waxaan is oran karnaa waxaan wacanoo soo jiidasho iyo shacni muujinaysa, muuqaal suurad haan wax lagu shubtana leh. Laakiin markaan gadgadinoo rogrogno ayaan ogaan karnaa duleelkeeda dambe. Arrintaas aan ku soo baraarugno waxaan ku tilmaamnaa Soomaali haddaan nahay munaafiq weeye ama qayaanoole ruuxaasi. Inkastoo badanaa dhagartiisuna la dareemaynin, haddana gadaal ayuu ka fashilmaa. Haddii aan eegno mucaamalaadka ay ka qoraan dunida kale qowmiyadda Soomaali, waxaan isdhihi karnaa waxaa weeye sidii dunida cilimaadkeedaba isku balbadasho ayaa qowmiyadeena Soomaaliyeed haatan la joogo xilligan isku bedashay, taasoo caddaynaysa jiritaankii insaankii waagaas hore iyo fikradahay xambaarsanaayeen iyo kuweyna hadda, oo waxa u dhaxeeya ayaa ah farqi lisbarbar dhigi karin marna.
taariikhdaha haddaan dib u laabano 40 sano ka hor waxaan nagala aaminsanaa ama ay naga aaminsanaayeen jimsimadaha kale haddaan nahay Soomaali waa sida tan dad isjecel oo calankooda muhiim u yahay dad isku damqada oo isku hiiliya xaalad walba dad midnimadooda ku faano astaantooduna tahay kiina taagdaran taageera weligiina dad isku filan oo wax soo saarkoodana yahay mid la yaab leh dad aan hami u lahayn dalal shisheeye dad jiritaankoodu ku faano iyo dalkooda iskuna hiiliyo cadowga iska durjiya dadka aqoontoodu il dheer tahay oo la factami kara dadyowga kale maxaase isbedelay in laga maseero xasloonida aan ku noolnahay jaceylkii Allah aan isku taageernay iyo midnimadeena taasoo sababtay in la kala siyaasadeeyo oo la isku keen laaluusho sidii adoonsigii qarniyadii hore kale aan dalalka aan ku qaaradka nahay ku arag jirnay ama taariikhdooda noo soo warisay taasoo la casriyeeyay oo meeshii hub iyo naf lagu kala beecsan jiray noqotay caqiido khaldan in lagu dhiirgeliyo qaarkeen naga mid ah abaalmarinteennana lagooga dhigo qarash lacageed iyo hubsiin aan isku dhammayno anaka isku dhabargoyno sidaas oo xataa madaxdeennii iyo aqoonyaankeennii foolka fool liska hor keeno